wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed nuur calaara duul iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Saylac. Socdaalka wasiirka waxa uu helinayay la taliyaha madaxweynaha axsaabta qaranka iyo doorashooyinka mudane maxamed muuse abees. Socdaalka wafdigan ayaa ku saabsanaa xalinta khilaaf baryahanba ka taagnaa magaalada Saylac. Wafdiga wasiirka ayaa waxa duleedka magaalada ku soo dhaweeyay dadweynihii ku noolaa magaalada Saylac oo uu horkacayay gudoomiyaha degmada Saylac Xuseen Iidla Barkadle. intaasi kadib socod lug ah uu ku soo maray magaalada wuxuuna meel fagaara kula hadlay dadweynihii soo dhaweeyay. waan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo qalbiga wanaagsan. anna waxaan idin leeyahay qalbi wanaagsan oo aan doonayo inaynu xaaladii halkan taalay si khayr leh oo wanaagsan ku xalino. qalbi wanaagsan iyo niyad wanaagsan ay nagu soo dhaweyseen waftigeega waa aqbalay waa qaadanay insha Allah waa idin la joogaa. waxaana inoogu ducaysaa dhamaanteen in Ilaahay wixii wanaagayna waafajiyo. amiin insha Allah khayr baan rajaynayaa. aad baa mahadsantihiin. si kastaba ha ahaatee waxa la wada sugayaa dhamaystirka arrimahaasi. waa Cali Xajar, Somali Channel, magaalada Saylac.